Audio Jungle. waxaynu maanta u fadhinaa doofaynta buugga الطريق إلى الوطن waxaa qoray buuggan الشيخ إبراهيم السكران runtii buuggu waxaan oran karnaa wuxuu ku soo beegmay yani waqtigiisa iyo xilligiisa ku soo beegmay oo ah bishii Ramadaan ee bisha Qur'aanka saddeed yani Sheikh Ibrahim Sakran haddaan in yar taariikhda ku noqdo Sheikh Ibrahim Sakran waxaa looga jiray Abu Umar Ibrahim bin Umar bin Ibrahim Sakran waa sheekh Sacuudiya oo sakarkiisa iyo wilaayadiisu ay Sacuudi tahay waxbarashadiisii markii koobaad wuxuu ka soo baxay jaamacadda yani troolka macaadinta ayuu galay inkastoo hal sano ka dhigtay kadib wuxuu wareegay jaamacadda imaam maxamed bin sacuud uu wareegay halkaasoo ka soo qaatay yani darajadiisii koobaad yani digriga isla markaana uu maasterkiisa kasii waday isagoo ka baxay siyaasa sharciya kulliyadda siyaasa sharciya ayuu ka baxay oo manchesterka ku qaatay kadib waxa uu ka wareegay oo yani waddanka sacuudiga uu ka tegay waxaana tegay waddanka britain xaggaasoo kasii watay waxbarashadiisa oo master labaad ka bilaabay ماستر كده بعض البلاد واحد هي يعني انه يعني قاطع القانون التجاري الدولي يعني القانون الحقيقي يعني كان عسليه دونك اما الدوله دي سوى كان عسلان ايوه يعني قاطع قانون نظام محدد او رحيه يعني لابد يكون يتضبط بقى الى الفكر الاسلامي المصارح كان الفكر الاسلامي المصارح لي قد مركز قري يعني مقال وجه المآلات الخطاب المدني ومركز دمو مبدلين كتاب مبدلي لابد يكون يتضبط بحي كده بيه وحوصات الى ساحات علماء المفكرين تاع وحكوا قرار مشاكل ومد الاسلام تاعيستا يسدي له قرار نهايه تطور المسلمين halkaas ayuu taariikhda ka bilaabantay ilaa markii uu dambeysay yani qoray kutub gaarisa ilaa 10 yani gaarisa kutubta waxaa kamid ah kitaabka ay hadda wada filmo oo la yiraahdo الطريق إلى القرآن waxaa kamid ah مآلات الخطاب المدني waxaa kamid ah labada buug aad u caanay masalkiyaat iyo mujrayaat waxaa kamid ah waxaa kaloo kamid ah buug la yiraahdo الغاية والقرآن yani buugaag badan oo noocaas ayuu sheekh qoray intaa kadib sheekha yani mashaakil badan baa la kulantay oo badanaa culimadeena hadda mufakiriinta haysta oo ah in la xiro oo jeer uu galo لقد يكون يلي حتى مركب باتشات الجديد يصوروا أعلاننا إنه يعني تطور المناهج المدرسة يعني مناهجتي وضع السعودي بقى تطور المسلمين إنه كهربي تطور كماها تطور يعني لبنا نعمل المواقع تطور سلبي أنا مشاركة تطور إيجابي أنا مشاركة لكن في علم تقسم لي أيام الوقت الإدراك الشخص أنا الوقت كمي أخذ مني طبعا كبيرة سوداء أو إذا ما تبدأ تقول يعني نقول بعدين وآية الشيخ الوسوي به أنا حد مثلا يمرض بأن الشيخ تقول عليه أو مشاكل هايستا لا هو حلو برينا إنه يعني كصوف تهاكاس إذا ما علم هذا كلام بدنا نسلم أنا حاول يعمل هذا بكاء عندنا هذا إنه يعني علم هذا الدعاء والفاتحة هذا المرض إنه لا يعني شيء كسوداء أقوانتي علمي ذاك المشكلة ولينا هالكاي بس يبغى waxuu ku bilaabayaa quraanku yani marka qofku uu akhriyo kaanama waxa weeyaan yani qof tusaale uu ka soo qaadayo adagoo qol maran jooga qolkaasi oo yani wax cid ka dhaxalisa aanay jirin hawadu taagan tahay cid yani jamaadaad iyo cid hadlaysa aanay jirin yani degenaanshaha dareemi lahayd iyo wax walba ku dhex dhageysanaysa sida u dareemi lahayd ayuu tusaale uga soo qaadanay markale wuxuu leeyahay quraanku waxa weeyaan kaanama inaad warshad dhex joogtay oo yani qofku markuu tadabbur sameeyo ama quraanku si raadintu leeyahay kaanama adiga oo joogay yani warshad dhex joogay warshadaas oo mashiino badan ka dhex buuxayeen yani qofku markuu warshada dhex joogo maskaxdiisa waxay la qabsanaysaa buuq iyo qaylada la qabsanaysaa laakiin hal mar hadduu layerku go'o oo dhammaan wixii oo dhan ay istaagaan runtii yani qofku uu dareeyaa isla markaana wuxuu yani la kulmayaa deganaansho aan hore u degay yani u dareemin sadarida baa la yiraahdaa qofku hadduu caadi u ahaa oo yani shakhsiyadiisa si uu caadiga ahaa hadduu quraanka dhageysto uu tadabbur sameeyo runtii wuxuu yani dhexgal ku sameeyaa isla markaana yani qaabka qofkaas u dareeyo marka xaaladaas kale ku jiray ayuu noqonayaa isagoo sii wada ayaa wuxuu leeyahay sheekhu waxaan aad runtii u baaray oo runtii yani in badan aan dhex galay markan yani reer galbeedka ama Britain aan tagay maxaa keenay in bulshada yani ama yani dadka reer galbeedka ama dadka gaalada ahi maxaa shay ugu badan ee keenay inay yani islaamaan oo soo islaamaan maxay tahay يعني باريس بدن oo sameeyay kadib uu yani kutub badan oo baaray rag badan la kulmay yani kulamo badan oo ka qayb galay oo dadkaas ay kaga sheekeynayaan qisaskoodii islaamka kaga sheekeynayaan wuxuu ku soo tabay wuxuu yiri ama kelmadooda yani ay ku soo tabeen waxay yiraahdeen sama'u al-qur'ana wa sha'ru bi shu'urin istahwada alayhim yani qur'aanka ay dhageysteen isla markaana waxay dareemeen shucuur iyo dareen aanay hore u dareemin oo ka qaalib noqday waxaan u soonahaynaa inuu yani ka muslim marka yani muslimiin yani ilaahay subhanahu wa ta'ala fitra يعني أي إسلام يعني نقول لي إسلام كان روح دينه مر والبوي ديسنتاي
oo qofku markuu islaamka yahay ruuxiisu way dhisan tahay oo yani salaadii buu tagaya sakadii buu bixinaya yani markasta quraantii buu ayuu ku dhex jiraa yani ruuxiisu mar walba dhisan laakiin dadka reer galbeedku waxay yiraahdaan ama aqoonyahanku markay sheekeynayaan najahna bitadwiir albashariyya waxaan ku guuleysanay inaan bini'aadanka horumarino oo dhinac kasta oo bini'aadanka aan horumarino illa aan geynay yani meerayaasha aan geynay laakiin fashalna bitadwiir alruuxi yani waxaan ku guuleysanay in waxaan ku guuldaraysanay inaan yani horumarino ruuxda bini'aadanka oo ruuxda basharka saadaradeed iyagu haday quraanka maqlaan waxay ka helayaan deganaansho aan hore u dareemin ay ka helayaan saadaradeed bay ta'athur ugu sameeyeen marka wuxuu leeyahay yani sababta koowaad dadkaas ku soo islaameen waxay quraanka inay akhriyeen marka soo sheekhu inoo tilmaamaya yani hatta aljamaadaat أما والحياة أشياء وسيد القرآن تقول تأثوان وحكينا الله يعني القرآن الله سبحانه وتعالى كل شيء لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا هذين حتى بور كسود تشيلهين واحد أرك الله هذين أيضا كلا دعنا سأو كلا فريق مثلا يعني الشيخ عليه إذا كان الجمادات هكذا فكيف يكون البشر هذه الجمادات أي نوع عن قريان بالقرآن هذين دحدل قصة ما لهن فهم لهن سدبين إنه نقول لهن wuxuu ka sheekeynaya qisada Abu Bakr markuu yani hijrada uu yani galayay bari yani hijrada qabla al-hijra wati yani nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabada kula dardaarmay inay hijra sameeyaan oo xabasha u hijroodaan Abu Bakr wuxuu ahaa dadkii yani kamid noqday inay ku fikireen inay hijroodaan kadibna yani wadada wuxuu kula kulmay in la oran jiray Malik ibn Harith ibn Dagana markuu kula kulmay wuxuu ku yiri war xagee tagaysaa waan hijroonay buu ku yiri war hijroonay aniga ayaa madax ka ah qabiil qaara la oran jiray oo xilf la wadaag ama yani xilf la ahaa oo yani heshiis la ilaahay Quraysh marka aniga guriga joor buuri sidii buu guriga ku jooray Abu Bakr Siddiq yani guriga hortiisa wuxuu ka sameeyay mutulayar iyo goob yani wax ku akhristo oo Quraanka ku diraasayo oo runtii wuxuu ahaa qof yani runtii aad Ilaahay ugu xidhan xataa Quraanka markuu akhriyo oo jiray waxa la sheegaa yani Bukhari kitaabkiisa ku soo warinaya marka uu yani goobaha uu fadhiisto oo Quraanka diraasanayo oo akhriyo هل كلمة صعب عبرة وحده فيتقصف عليه نساء المشركين أبنائهم كلمة ويتقصف متى عربي المعنى واحد هذا وازدحام يعني إنه ضدكاس أبر تمام أو فلان أو يعني بدون مدة كحة ورصد وجود وين لها يعني متلها يري قول كاير كشري قالدي يضمر كقالدي يو عروض هذا واحد يسميه شرين حتى الصناديق قريش ردوا وينه إنه إمادان إسلام كان يعني دقيستان قرآن كاس قبل أي دوحان أي مجري يعني تأثر كنوع عصا ضدك قالد حتى أي تأثر كنوع عصا سمينيان عليه هو قرآن كا وحنا كينس وحويان يعني عربي ذا يفهميان إسلام كان معاني القرآن كل هالضيو يعني سفي عن أمر حتى البدن كسمينين إلهي سبحانه وتعالى يعني كلية يعني القرآن كتأثر فيه ثم نقن مد يعني تأثر عادي أم نقن أو تأثر يعني جسمي أم نقن حتى واحد عادي إنه قفل يسرو تهان القرآن كما تلوط الأخير لو توضع أيضا بدن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا أما هرمينا تذكر أوتوا العلم هذا القرآن كان فضل الأخرين يخرون للأذقان سجدا يعني لك أيود عن السجود أو يمن لك ولد عن مرت ليس النبي ذا لقى شيطان أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يعني حتى أنبياء وحي هايين عليه الصلاة والسلام يعني لك أولد عن مرت القرآن كنقول الأخير القرآن كحدلك إياه فائدة إياه معناها كل شيء أودد يرو دريمية حتى القرآن كل يوم كان إنه يعني جسم يعني شركة أو يعني قف يعني لك أدعو حتى يعني أو ينبغى قف كسر كسر يعني إيمان شرتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم متى قال أهل الكتاب ليش يجيني متى القرآن كان الوضوء الآخرية ترى أعينهم تفيض من الدمع يعني عنده هذا واحد كأركز إنه المضو كقوم سامي المضو كسو يستعرسه تأثر كنوع عسى أي قرآن كو رنتي ليه وقدر كتوبات أما يعني موضوع كتوبات والشيخ كرشتينية مرلبات وكرشتينية تسألوا المسوق عضنية وحليه بل ضد سيدي أي قرآن كا وجرادوبين أما القرآن سيد أسامي أو سيد يعني قصة أبو بكر أنت صور شيئين صوت آيات جمادات لو أنزل هذا القرآن كم هاي صوت لو حشيري يعني نتي مطعم بن جبير مركو يعني أسردي أما ذاك اللي لقى قفاشي أبو بكر يعني بدر لقى قفاشي مركو إيمان يو النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان يسوع يعني قرضة وجه الله مطلق حيران وجه الله وجسوا دايو وقت كسر بيرمي صلاة يعني مغرب كسر بيرمي النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدور سورة آخرية آية وحسود داري أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم الغيب أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون يعني مرة آياتها مريو مطعم بن جبير وحول لي هي كاد قلبي أن يضيع يعني قلبي يروح كل وادي إنه طوله يعني تأثر تجرادين القرآن كل كينيو أي تاتن سنة وأنا قف قال وحتى الله مذا وشيخ أدو سوق عجيبة إنسان كأوتري حتى القرآن كرادين كمصمين حتى جنك أي قرآن كرادين كسميه
النبي صلى الله عليه وسلم سو أصحاب السنة مالين الصبح سو تجينيا وكي قالوا جنك كم بدأوا يمادين أو آيات هذا وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين يعني مركي يمادين حتى وحي دارين القرآن كرادين تكون سمير وقالها إني سكوت ترى مثل تركوا إلى دور آموس وعندي سنة حتى أنت كم يستعجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين طلعت يعني قبل قليل وحي هاين كفار يعني بعد دقائق نمحي هاين منذرين بهاين أو فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مركي قوم كذا يكونوا غدين محي نغدين قارب ودرية محي إلى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يعني قوم كانوا صوم عن الكتاب يعني من بعد موسى لسودة شيء أو هنون يعني يجلس توصل روح هنون ما يكون سيجون محي إلى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم يعني سوء أجيبة أو قول كان يعني سوء أجيبة هل كانوا سوء يستجني ويصدقين وعني تقول هذا ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤمن فليس بمعز في الأرض وليس له من دونه أولياء يعني هل كاس أي مريا القرآن كرادين تكون سمية حتى واحد دار أي يرو أنت كنت أثران حتى إسلام مرتنا ضدتي أي ويران حي قرآن في حديث أي ويران أو إسلام مرتنا يكون هذا يعني كهلاي أو سوء شيء هدي إنه يركض صعنا يعني وحو إن تسنى يا الشيخ وسوق عضنيا مركل جنكو وكي يقولوا حي إليه أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يعني حتى القرآن كإنه عجب يلياب كل المامين أو يعني وح أنا هراء ومغرين أيكو أركان أنت أنا القرآن يعني الشيخ وحنا وشرية بلدت كاس السيد القرآن كا أما الضحك الأسمية أما يعني تسألون كي أمثلة القرآن في نص قاضيه إنه يعني أيهن أمثلة عد أو يعني القرآن كسيد كاسي وجر دوبين وحنا الأرسون هنا قرآنكو لا يتكلم بالتفاصيل بل يتكلم بالأمثال يعني قرآنكو أنت أوتها الله تفاصيل شوحة كبض أنت أوتها الله أمثال يتسألون أنت أوتها الله وإحنا الأرسون هي قرآن تدسدح ميلاد الله بميلاد إنه يهين قصص إنه يهين أو قرآن يعني قصة أما تجارب بشرية قرآن يعني ضد اللي يسود الدنيا قول صدق هذا وحكي الله يا منازل الأشعريين أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبحي ضد هبينتي يعني بدويه هذا لجمع قليل قرآن كيلو هبين أردن آخرية صبح لك على جمع لكن هبين أردن يعني أسود تاجن قرآن كآخرية صبحنا يعني أركز يلو بدويه هذا أن سيجونه شقت ريو شقت ضد قبصانية أشعري يعني أبحي الطريق إلى القرآن سيد عبد الله كده وجهي marka aad akhriyayso waxaad soranaysaa macnaha meel aad turtaba ma leh oo wuxuu u baahan yahay yani jalasaad badan amba fadhiyo badan lagu qorfeeyo yani waa kitaab mudan oo marka qaar aanu markaan akhriyayo waxaan idhaahdaa waa kitaab nin gobi qoray kitaab gobana ah laba isugu darsamay kitaabku yani wuxuu ku geenayaa marka aad akhriyayso inayna inagu san quraanka hadda u akhrina baan quraanka ugu dhex jirno iyo sidoo sheekhu uga warramaya xaaladiisa iyo marxaladaha kitaabku quraanka uga warramayo yani intaan isku jirno malaha waxaan ku qiyaasi karaa muddo masaafo loo socon karo inta hore Cabdallah la qabaayo kulli kitaabka waan yar sarsari doonaa insha Allah saan ugu tala galnay oo inaan kitaabku wadaagno marka hore anaguna waxaan yar sarsarno laakiin hadaynu dhaahno ala soo qaado macnaha laga hal safxad ka gayoon kareen inta Cabdallah kadib waxaan ku bilaabaynaa dad badan oo inaga mid amba inagaba ah su'aal baa la isweydiiyaa qofku hadii jeer su'aal buu naftiisa weydiiyaa su'aasha qofku isweydiinaya waxa weeyaan quraanka maxaan ugu tadabbur laayaa sidii loo baahnaa amba quraanku muxuu ii saameyn laayay inagoo og inuu quraanku xaqaa'iq badan oo ay tusay taabsiyo ka warramayo amba ishaarooyin badan oo inoo tilmaamayo kuwaas oo u baahan tadabbur in magaranaysa loo fiirfiirsan amba la dhax galo haddaba arrimaha jira ku caawinaya inaan quraanka fahanno anigu soo koobaya oo waxyaabo badan runtii soo gaagaabin doona arrimo badan baa jira qodobka koowaad amba arrin koowaad ee nagu saacidaya waxa weeyaan quraanka markaynu akhriyano in aynu u fiirsano inuu ku tadabburno quraanku wuxuu inoo soo bandhigayo oo ah xaqaa'iqda al-ilm billah ilaahay in ogaal loo yeesho xaqaa'iqda ku jirta ee quraanka يعني تصوراتكيسنا ودي نجاح حيل سريع نفتنا كده جيسو إنه قفكو أوفير صدا أو يعني قلب سوتش هذا وكو أخريه أو ضحك على اللي بهيه وأنا قدر كأنه ساعدية تطبعاً هم فكرين تاع عصر كمدي يعني واحد لا يعني القرآن كأنه كور رمى يوحى لا يقع التشريعات كعملية
sida salaada iyo soonka iyo wixii la mid ah laakiin wayna ogeyn inuu quraanku ka waramayo yani taa mid ka weyn waa cilmu ilaahiya waatu ibn Taymiyyah lahaa khidaabka cilmiga ah ee quraanku ka waramayo ayaa ka xeel dheer khidaabka amaliga quraanku ka waramayo Sheikh Islam ibn Taymiyyah Sheikh Ibrahim Sakraan sheegu soo aroorinaya sheekadan wuxuu ku silgoynaya ay ku soo ururaysaa يعني قفku hadii uu xaqaa'iq badan u soo urursado oo maadiyo cilmi iyo nooc walba isugu jira oo kitaabkii la ilaahay uu soo dejiyay oo ka jaahil yahay يعني qofkaasi soo dhameystirmi kara amba soo dhameystirmi kartaa qofkaasi wuxuu sitaa say wax dhameystiran noqon kara qof uga digi kara dadka uga digi kara dad badan oo يعني mufakiriin isku dayay bal arrinkaas oo dadka ka dhaadhiciyaan oo يعني mu'allifaad qoray ka qoray yani fikirka kana laakiin culimadii hore ayaa iyaga laftooda uga horeeyay Ahmed ibn Hanbal oo kale Daarimi oo kale yani risaalooyin bay ka qoreen yani ugu jawaabayeen qoladaasi yani intay soo qaadeen cilmiga magaraansa ay ka soo qaadeen inta ay quraanka ka dhax galeen quraanka ka soo saareen ayaa ka badan buu leeyahay sheekh qodobka xiga ee inagu saacideeyay baranayno tadabbur badan quraanka u yeelano waxa weeyaan quraanku wuxuu ka waramaa akhbaartii anbiyada warkooda meelo badan buu ku soo celceliyaa si wuxuu uga warmaa waafiya oo meelo badan laakiin inagu saynu u qaadano ee ka sheekahaan oo garanaysa uu sheekahaan nagu dhaafto sheekadii macaansitow way ka xeel dheer tahay waliya sheekh oo waa tusaale nool waxaynu oran karno oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelaha badan kaga waramayo ee uu ku soo celinayo garanaysa qofka quraanka akhriyayana uu fiirsaday mudan tahay Ibn Taymiyyah ayaa mar kale wuxuu leeyahay anbiyada waxyaabo quraanku inoo sheegayo waxa kamid ah يعني أنبياء دعاء iyo tawbadoodii istighfaartoodii iyo waxyaabo badan buu quraanka warama oo meela xeel leh lagu warama oo iyagu u baahan in loo guud galo oo la dhex galo waxyaabaha kale la yaab kale ee uu ku sheegay waxa kamid ah quraanka meelo badan oo kala gedisan ayaa lagu sheegay anbiyada oo lagu soo celceliyaa quraanka imika tusaalahaan oo kale Nabi Muuse marka suurad lagu sheego Alayhi salaam ee suurad kalena lagu sheego macnaheedu ma waxa weeyaan in sheekadii Nabi Muuse suuradan lagu sheegay suurada kale lagu soo celinayo taas oo ka waramaya ma wuxuu leeyahay suurad kasta ama meel kasta oo lagu sheego anbiyada risaalo gaar ah wadata oo qofku ay mudan tahay inuu sida u qaato oo qofku ay mudan tahay inuu meel gashado وانا تلو بهيه ابن تيمية runtii aad ugu soo celcelinaya ibn Taymiyyah wad garanaysaano laga maarin maayo marka xaaladaan oo kale la joogo sheekhu inta dambe oo dhan ibn Taymiyyah aad hadalkiisa soo celcelinaya ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qisada nabi Luut ayuu soo qaadanaya wuxuu ku sheegay buu yiri suurad Huud buu ku sheegay buu yiri waadana xijri buu ku sheegay buu yiri waadana Cankabuud buu ku sheegay buu yiri يعني isagoo ugu jawaabaya arrinkaas wuxuu lahaa isagoo qolada mantiqiinta ugu jawaabaya ayuu Ibn Taymiyyah hadalka yiri yani meel kasta oo lagu sheegay nabi Luut oo suuradaha kamidii wax gaar ah wadata oo iyada lafteeda ay u baahan tahay in waxyaabaha kale inagu saacidi kara waxa kamid ah qofku in khitaabaadka ku socda ee qofku markuu saaxada quraanka ku jiro inuu ka qaato yani 10 hore u wada amba hore socodkiisa iimaaniga ha noqdo amba hore socodkiisa shakhsiga ha noqdo inuu 10 ka qaato qaariga qofka quraanka akhriyana waa inuu u baahanyahay inuu ka qaato acmaal iimaaniya oo u horseedi karta inuu qofka hore u socdo laakiin qofka shalay quraanka akhriyay ee suurada shalay akhriday hadii ma garanaysaa maanta ayna wax badan ka bedelin macnaheedu wax weeyaan quraanka meel dhex gelin wali oo quraanka wali laba falgelin anaga quraankana gaab baa inoo dhaxeeyay wali macnaheedu saas uu noqonaya su'aasha isweydiinta waxa weeyaan oo quraanka Ilaahayna akhriyana dadka miyuu ka lumiya muraadkii ay Ilaahay ka lahaayeen ama muraadkii Ilaahay ka lahaa Ibn Taymiyyah ka jawaabaya wuxuu leeyahay maya waxa loo soo dejiyay quraanka inuu dadka u cadeeyo oo u sheego yani waxa
ونعفي بدن له إنه ضد هو الشيء أيوة الله سبحانه وتعالى القرآن كله في سوسة يعني القرآن كان ضد النعف ولا ما كان صوته طبعا القرآن كان ضد النعف ولا ولي ده قف كاتو القرآن كآخرية أنا رنتي وأنا كران إنه يدرجين كبدن حديث يا إنه شيء يا بابا كبدنه لسو حديث سعر عليسو وحيابها كلا كم ده نقفه ندون إنه القرآن كبر إنه يساعده وحكم ده قفه إنه صح هذا الصدق مركو القرآن كآخرية تصاريش القرآن كنسيه ويا القرآن كو أنت ودحجله تفاسير واحد كبدن أنت وتصالح دحجله يعني تصالح كسو القرآن كقصة أرورا بمعنى سوتها تصالح كسو القرآن قصة أرورا وحليه هبراء عيسى يسمى قرن سنة إنه فايدة سنكرنا وإلهي سبحانه وتعالى من كل وتلك الأمثال نضربها يعني تصالياشها إما تصالحان نهرب بني إسرائيل بلا يجوز إلهي سبحانه وتعالى القرآن كورما قوم ولد بلا سبحانه وتعالى القرآن كورما واحد سويدين لي مشاكا هم بالقرآن كلوجا ورمايو يعني شاكا سكت تصصل ولا صوتها بس يعني هو شاكا أوباهن إن تصالي 10 كقاضنه طبعا وين تصالي 10 كقاضن شاكا أوباهن ولقد ضربنا للناس في كل مثل إلهي سبحانه وتعالى آيات كلها أنت هذا لو كنا معنا وحيابها إنه قصة عادي كرب لنا القرآن كي نحكله قدر كلامات أنه يطهر دونا حويا كتابه وحكوا شيء إبراهيم سكران يعني سورة قرآن كوجو إن سورة فاتحة هاي يعني ولا سويتين كرا سورة فاتحة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل شيء يقولي هاي سورة كوجو إن هاي سورة فاتحة يعني الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم 7 من المثاني وطلها ويعني سورة فاتحة محيا ضبط قفل البناطي كلها شيء مستري ده سورة فاتحة وسورة النمر والباخرنا أو يعني الصلاة والبا وفر الله أو صنع له إن كنت كنا إنه سورة مو انتهى سورة المحيا كلها شيء ما أعرفها هي يعني تاريخ يسود كتابة كهري القرآن كا مثل وحي كهذا لسا القرآن كا كوين يعني وحلي الشيخ وكشيء كتابك وحولي هي يعني أركنا كهذا لسا سورة الفاتحة أي أرن لورد جايشين وأيو وأرن يعني أضونك إلهي سبحانه وتعالى ستوصل يسوي جوابيا قدر كان القيادات قبل حضورنا وحويا تأملات كبشر رمضان أو القرآن كسر رأي شيخه لبصيقة كنت مع دابوري والسيقة هو هذا شهر رمضان بكنت مع داب أو يعني شهر الكامل والكلي هو حويا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والسيقة جود بولي أما السيقة عام كيف القرآن ما كان أفضل صدق بشهر رمضان يعني كنت ضدهم بينكم قاعدة لكن سوى كليات سيرح كش القرآن لبعض السيقة كذا صباحية سيقة جزئية وجرته والسيقة جزئية حويا وليلة القدر أبيك إن أنزل في ليلة القدر إنسان لبعض السيقة كي ماذا ليلة القدر هي ليلة المباركة على بعض السيقة ماذا ولي الشيخ وحي سويدين مضان بشان رمضان تيلها سبحانه وتعالى القرآن كسودة صح القرآن كمركو الله سبحانه وتعالى سودة شيء ملك جبريل لو سور راعي سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورص بعيه waxay isweydiin leh quraanku soo dejinta bisha Ramadaan Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام gaar ku hayay waa lagu soo dejiyay waxay kale inuu quraanku soo degin shariicada ay noo sheegtay laakiin in malak jibriil Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام quraanka la muraajiceeyo oo ay muraajiciyaan wuxuu leeyahay sheekh waa qadiyad nagu wada socotay naga dhamaanteen oo dadka tusaale looga dhigayo in bisha Ramadaan quraanka la noolaado waayo kan malak jibriil Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام imanaya fi kulli layla sallallahu habeenka soo yimi jiray soo la socday quraanka marka halkaas ka soo galnay waxa ina su'aasha kale isweydiinta madax weeyaan taraawiixda xikmadda ka dhaxaysa taraawiixda salaad taraawiixda maxay tahay amba xikmadda dadka iyo salaad taraawiixda ka dhaxaysa amba xikmadda salaad taraawiixda laga helo qorba san isku weydiin karno xikmadda salaad taraawiixda laga helo Ibn Taymiyyah marka la jawaabay wuxuu leeyahay Ibn Taymiyyah حكمة لوجهي وحويان ليسمع المسلمون كلام الله ساي المسلمين تو مقلان هذا الكلام فحكمة ويويان يعني بشهر رمضان بين القرآن كده رجنان ومسجد إنه ما شاء الله يعني إن بينك قعدك معين تلا نوصل ولا بينه أنت هتصرق عليه نتشيان صلاة الليل يتراويح
الحكمة كده حيسانا وين القرآن كي مقلنا وين كنت تدبرنا حتى ما تدبر القرآن كأنت هنا نكبح محا أنا جينا لقد من هالقضاء بندوني أن نسحسوس إنه وحنا جينا لقد بوحويا القرآن كان وين آخرنا وين جوامرنا القرآن كان إنه الصدق كآخرين إنه طول مرة إنه إنت إنه كده إنه يعني علماء واحد سويديان يعني قف إنه القرآن بدن أخريه القرآن بدن أخريه ما عليك رمضان يانا القرآن أقرأه كنت تدبرته يا با فضل بدن كل يدي هذا الباكي شيء لكن بحلو بدي أنا فضل بدن هنا كنت تدبرته القرآن مرحبا القرآن كان ينتهي نرجع عنه أنا قلت إن القرآن كأول رجع عنه أكيد موضوع عبد الله كنت فيه شفاء للناس يعني دو كلمة من كلامين دو كلمة من كلامين قف كين حنوصنيا يعني تدبر الآن واحد كانتين قف كين حنوصنيا ما كان دخاتير تلقى سوق قوسته لا يلاحظ القرآن خاين قضينه يعني أنت أصلا كهر تجربين كقرآن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قاعدين تذكر ربيه هاي كانن حتى هاي إنه إذا كنا آخرنا دو هبل بكسودا أصحاب تقارن هاين محل نسينا يعني ويكون كرسونا يعني تجربة ذا السماينا يان أنبا وحي السماينا يان أي كون كرسونا بقول كبقول اللي جدوه بيه لكن ما تدوه الرسول كنا كيان يو لعل اللي جو بكسونا ودي اللي جو بكسونا أنا ودي أي صحابة الهاين maxay aday quraanka aanu ku daweynay hadda aanu ku daweyn suurta faatiha aanu ku daweynay maxaa la nasinaya inta asal nasinay oo nabi maxamed alayhi salaam uu tagay nabi sallallahu alayhi wasallam laha arday inoo qaybiyo xoolaha saada maaratan yani qofku inuu yeesho yani u dhawaansho iyo xeel dheeraasho inuu quraanka aanu ku yeelano oo inuu quraanka u dhaadhacna baa loo baahan yahay inta hadan kaga imaado inta waxaan ku soo afmeeraya majaalkiina wala furdo waxaan ku soo afmeeraya maxay tahay calaaqada qotada dheer ee qofka iyo kitaabka Ilaahay ka dhaxaysa sheekhu dhowr qodob uu sheegay wuxuu sheekhu leeyahay markasta oo uu fiirsado quraanka waxaan dareemaa yani aan inaan ka fogahay yani muraadku Ilaahay galaha markasta oo quraanka yani u sii fiirsado oo yani sii ta'amulo muraadku Ilaahay galaha inaan wali gaadhin ban ayaan magaranaysaa ayaan ogahay bur waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku sheegay bir umuuro badan إلهي سبحانه وتعالى وحكو شيء بيودي تاهل نانتي سقرانك وينيدي سي إلهي قابو كشيء مشهد يوم القيامة إنه ضمبيه كشيء شنا ينارنا ضمبيه أيو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كشيء معناه ما كنت شنا يوم قرآن كور رميه يوم أنك محشر يوم القيامة قرآن ما كور رميه كأنما إنا تحتاج أنت بتسموس يعني هو شيء نقوي وياه كان من لكن هذيك قصة هلا قشة كيو لقرآن ما أنت كان أنت سلحت لكن لقيه وينات يعني سنة وقاعدة سنة وقاعدة لكن ما كل قرآن وخطاب القرآن كل الله أخير يصير القرآن كل شيء كإنسان صار واحد إسكرنا يساقف مو القرآن كو أخير قلبي واحد إسكرنا صار إن هذا كان من تحتاج أنت بتسموه سماش هذا ما أريد كان هذا ممكن صفات كي كورمه نارت ممكن صفات كي كورمه محشر ممكن صفات كي كورمه تذكر حن يدك وناسن وقيسمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعد الله مع القرآن كورمه يعني واحد تجي ساد مال هل كسر رئيسه القرآن كسوق له كورمه بقول ليه ما القرآن كان ضحك الله waxaan wixii loo oran jiray nataa'ij bahth waxaan inuu ku magacaabi jirnay bahsiga la joogo amba yani waxyaabaheena meesha ka faa'iidnay waxa uu ka warramaya buu leeyahay sheekhu quraanku ambiyadu buu ka warramaya oo intaas oo majaal kaga warramaya inta duqaadii buu ka warramaya intaas oo meelood kaga warramaya saalixiintii buu ka warramaya ummado badan oo qaarkood halaagay qaarkoodna ay dabar go'ayn buu quraanku ka warramaya yani waxa soo maxay u baahan yihiin inaynu si fiican u dhaxkalno quraanku soo kale wuxuu ka warramaya tashriicaadki salaadii soonkii sakadii wixii la midka ah muamalaadkii buu ka warramaya yani saynu dadka wala mucaamaloon lahayn dadka aynu wala dhaqmi lahayn buu ka warramaya القرآن كل حكي تجيله كلمة وحى صار ما حلوه كل يهبوا لي شيخ أمان وقول لنا وحويا عمارة النفوس بالله عمارة النفوس بالله يا شيخ أنا وام حي ولا سويدين كراسمه يعني وحى صار ما حنوصل قرنات أنت أنا وقصو خلاص يسي ما حيتعي شيخ وحلي هاي وحويان بتعظيم الله إن أرتى إلهي وينيسو وقضى والاستسلام كامل له إن اسكو ديفيد لما يستناد إله سبحانه وتعالى اسكو ديفيده إلهي مركز وينيسو إن إلهي هو يكحت لهذا وهذا يشير روح على هذا قف وإلهي اسكدي بتان بديه هاي أيو وقبل بديه حتى مركز تجيد تشوف وأنا شيء يعني تجربة اللي تشابه وقف مركز دي بقصتات وحق إلهي وعرّيه والأكتي نادم هو كل صلاته هذا حقا مقرن سوا عرّته وحبل يقول قوم حقا نضو عرّته وحبل يقول قوم الإلهي وتر عظمه يعني قف دي إلهي اسكدي بات سلاس الله القرآن كو محدوني أن فحن ضدكو
inay la yeeshaan xiriir dhamaystiran ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qoto dheerna ilaahay subxaanahu wa tacaala la yeeshaan ilaahay idinkeeda ilaahayna cididin dhaxaynaad ilaahay subxaanahu wa tacaala si fiican ula sheekaysato waxaan ku soo afmeerayaan ku soo gabagabeynaya oo qodobada ku jirtay sheekhu gunaanadku kitaabku sameeyay laba qodob saddex qodob aan ka ishaarna gunaanadka uu sheekhu kitaabku u sameeyay yani waa gunaanad la yaab leh sheekhu wuxuu leeyahay waa dadku isku mid maaha yaa sheekhe waxaad samaysaa horta ilaahay isku dhiibo ku ducaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala tadabburka quraanka iyo firfirsiga quraanka inuu ilaahay kugu arsaaqo waa qodobka koowaad waa in qofku inuu ku ducaysto waa qodobka labaad inaad samaysato xisbi يوميا أو أنك ذكر عنها هنا بالحسب يومي أو مالين كسوف في سطو القرآن قاس كلا نوراته هنا تسمي سطو وأقدر كسد هذا وحلي الشيخ هنا قريه هنا هنوصل ما ينو واختيار له مراجعين كره القرآن هي تفسير كيسة حكي وأنا سنقول يا قدو القرآن كوب هذا الشيء كبره حتى شيطان كان كسر بيني سما